السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم سو مقبول داوديال ملك ساتشوكتان كسر برنامج كي سبورت على كلا سعتان يوتيوب channel كان كلنا هاي عيارها لاتس توبة ما تسيب سبورتي وحن كوي دونا وامع السبتو شرر بيكي وقتجي قاعدة كبدا عكتا مانشستر يونايتد قاعدة كبدا عكتا نيوكاسل ولوريجي بورك السعودية بقر سلمان يو كديربا تعبرها قاعدة soo kaleeto waxaad ka ogaan doontaa kooxda kubadda cagta Real Madrid oo doonayso ciyaar Haaland halkay doon soo kale gadaan ciyaaryahan Harry Kane iyo Rodriguez soo kaleeto waxaan eegi doonaa ciyaar Lewandowski oo noqday qofkii saddexaad 40 gool dhaliya 5 ciyaareed fadlan haddaad ku cusub tahay channelkeena like share subscribe garay soo kaleeto halmaamin gambleel ka soo noqoto qofka ugu horeeyo oo helo video kasta aan soo dhigno channelkeena ciyaaryahan Gerard Pique ayaa ciyaaryahan imika ciyaara kooxda kubadda cagta FC Barcelona asee horaantiisa ayuu wuxuu ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Manchester United sababuu uga tagay kooxda United ayaa waxaan moodaa in kulankii United iyo kooxda kubadda cagta Bolton aad moodo inuu halkaasi ku fashilmay waxaana sidaa sheegay ciyaaryahan Wayne Rooney oo ka hadlay arintiisa waxaana uu dulqaadan waayay arintaasi tababare xilligaasi kooxda kubadda cagta Manchester United Sir Alex Ferguson kaasoo yiri mustaqbalka kooxda United ee Gerard Pique maahan mid la isku hubo sida awgeed ayuu uga gaday kooxda kubadda cagta ee imku ciyaaray Barcelona dhanka kale haddii aragno boqorka Saudi Arabia oo la wareegay kooxda kubadda cagta Newcastle United ayaa mooday inuu goob ugu jiro macalinka uu bedeli lahaa macalinka iminka kooxda tababaro ee Rafael Benitez waxaad moodaa in boqorkan uu doonayo dhowr macalin hase yeeshee waxa uu cadcad kooxda inuu keeno tababarihii hore kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur Pochettino soo kaleeto waxaa liska ugu jira tababarihii hore kooxda kubadda cagta Juventus Algeria iyo sidoo kale tababar iminka kooxda Newcastle Rafael Benitez ayaa isaguna rajo leh inuu kooxda sii maamulo hase yeeshee waxaad moodaa in Pochettino yahay ninka la filayo inuu la wareego maamulitaanka kooxda kubadda cagta ee United mustaqbalka dhanka kale haddii aan eegno waxaad moodaa in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay si waala u jeenayso ciyaaryahan Haaland oo iminka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund kooxda Real ayaa doonaysa inay gadaan ciyaartooyda kale Gary Bale iyo ciyaaryahanka kale ee Rodriguez waxaad moodaa in Haaland ay kooxda Dortmund ay ku doonayso ilaa 100 milyan balse kooxda Dortmund ayaa hadda diyaareen inay fasaxaan daayirkan ciyaaryahankan ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay ciyaaryahan aad u wanaagsan mustaqbalka ku leh kubadda cagta wuxuu dhaliyay 13 gool 12 kulan uu saftay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund halka hore kooxda kubadda cagta Zalba uu dhaliyay 28 gool 23 kulan uu saftay waxaad moodaa kulamadii uu saftay iyo goolasha uu dhalinayso inay badan yihiin goolasha uu dhaliyay Haaland iminka waa ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund dhanka kale haddii aan eegno daawadayaal waxaad moodaa ciyaar Lewandowski noqday qofkii saddexaad oo dhaliyay 40 gool ciyaareed oo kaliya hase yeeshee Lewandowski ayaa ciyaaryahan dhaliyay 40 in ka badan 5 ciyaareed halka ciyaaryahan Lionel Messi uu dhaliyay 10 ciyaareed in ka badan 40 gool halka ciyaaryahan Cristiano Ronaldo uu dhaliyay 8 ciyaareed in ka badan 40 gool iminka ciyaaryahan Lewandowski ayaa moodaa inuu soo galay kaalintii saddexaad kadib markuu shalayto gool kulaad u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Bayern Munich markii ay jireen 2-0 kooxda kubadda cagta ee Union Berlin waxaad moodaa sida awgeed inuu yahay ciyaaryahanka saddexaad ee u wanaagsan adduunka hadiiba si loo eego hase yeeshee waxaad moodaa in ciyaaryahan Lionel Messi iyo Ronaldo aad moodin laga yaabo sanadkan soo kaleetay inay noqdaan koox dhaliya in ka badan 40 haddii ay macquul tahay in dib loo isku soo laabto horyaalada La Liga Hispanishka iyo waliba tan Serie A Talyaaniga barnaamijkii sportiga asxaabeed kala socotaan YouTube channelkan ku leenahay ciyaaraha latest tube waa naga intia dhanka kale sidoo kale haddii aan eegno ciyaaryahan waxaad moodaa in Rashford dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee kooxda kubadda cagta Manchester United waxaad moodaa in uu kaliya tababaranayo si qaas ayaana waxa uu tababarayo macallin gooniya waxaad moodaa in la filayo haddii la isku soo laabto Premier League waxaad moodaa in Rashford uu ka soo muuqan doono safka rasmi ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United kooxda kubadda cagta United ayaa in badan waysay
لاعبكani u dhashay dalka Ingiriiska waana ninka ugu goolasha badan ciyaareedkan iminka socda kooxda kubadda cagta Manchester United dhan kale waxaad moodaa in qaar kamid ah madaxda Premier League ay sheegeen in kooxdii soo caday weysa ciyaaryahankii imaan way tababarka kooxdiisa aad moodo inay ka jari doonaan mishaarka aysan wax mishaar siin doonin taas ayaa la isku heystaa tolo yaa seewayn doona mishaarkiisa mise laga yaabin ciyaartooydii ay ka soo qayb galaan tababarka buucay kooxdooda hase yeeshee qaar kamid ah ciyaartooydu waxay sheegeen in aysan naftooda halis gelin doonin sababtoo ah cudurka halista COVID-19 ayaa ilaa iminka ah mid jira oo aan marnaba la ilmaami karin sida awgeed waxay leeyihiin qaarkood waxaan leenahay ilmaayaan leenahay caasas ayaan leenahay marka sida awgeeda waa inay ka fikiraan NFA-da in aysan ku degdegin in tababarka kooxaha dib loo furo hase yeeshee FA ayaa waxaa sheegay ciddii soo cadiway tababarka in aysan wax mishaara ku leen sportii maanta waa nagintii asxaabtiya maadsanidii